If you make a mistake today, tomorrow you'll be okay. Listen and videos like peace or service. You can now several things about what is going on Africa. For Iya, she's studying here. She's going to express her own idea. You know, What shall I say? I'm going to recommend, for example, all the Somali students, girls and the boys together. The moment, for example, they graduate, for example, the high schools, to join us, to share this happiness with us, to join this, for example, cheerfulness with us, and to share the happy life that we're just leading, for example, here in Somali State University. runtii jaacada waxay burburtay anoon dhalan waxay burtay 91kii anigana waxaan dhashay 93kii waxa ay burburtay anoo 2 sano dabcan waxa weeyaan markaan dhashay 2 sano ka hor ayay burburtay sida aan historyga waxa weeyaan ama geographically aan u haynana jaacada ummadda waxay ahayd jaamacad Soomaaliyeed waxaana wax ka baran jirtay 15,000 oo arday Soomaaliyeed isla markaana si lacag la'aan wax uga baran jiray marka anoo waxa weeyaan xilliga anoo dhalan bay burburtay inaan maanta nasiib u helo ana waxa weeyaan waqtigan in hadana ku soo biiro ay dib agaheeda ugu istaagto aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dareenkayguna ma mid soo koobi karo ru'aantiina waxaan jeclahay inaan dareenkayga farxad la wadaago ummadda Soomaaliyeed oo ku dhaqan over the world. The government creates what is called the equal opportunity because when there is a private education, a lot of young people are not accessible because of the economic situation. But this government realized that it is the duty of the government that the government has to give the Somali young people equal opportunity. That's why the force of the government was put behind the realization and the reinstatement of this university. To their products outside, to other, for example, shall I say, ladies. والله markuu ugu horeysay gabdhaha Soomaaliyeed ee dhigaysanaya markuu ugu horeysay anu maadcelinaya markii xigto waxaan ku boorinayaa aan leeyahay inay wax bartaan ee kacaan ee fadhiga ka kacaan ee wax bartaan inay noqdaan kuwa bari dalka aan ficil lahaa daafici lahaa dalka maadaama raggina ay daafacayaan wadanka dalkana ay leeyihiin ma insha Allah inaana ka yaraanin ka liidin raggii gabdhahan isku meel maraan insha Allah taasaan rajaynayaa taasaan ku boorinayaa inay wax bartaan ee kacaan hooyooyinka waxaan ku boorinayaa gabdhaha guriga ku haysta inay dhahaan gabdhaha soo daayaan si wax u bartaan wadanka wax u bartaan wadanka wax ugu qabtaan